marka runtii Axmed muddada uu shaqada joogay amaba aanu agaasimayaasha ku wada jiray amaba xiriirka dawladda midkaayaba dhinac uu ka hayay dawladdii hore iyo tanba rag si fiican u soo wada shaqeeyay arrimo badan runtii isugu yimi ragga odayaasha ah ee hadalka cad leh ee runtii qofku wuxuu doonayo iyo waxa uu diidayo iyo runtii waxa aad kala garan karto runtii ayuu ka mid yahay wasaaradda waxbarashadu waa wasaarad ballaaran waa wasaaradaha qaranka ugu muhiimsan ee runtii ahmiyadda gaar ah u leh amba wasaaradaha socialku guud ahaan qarankeena meel muhiima ayaa ay kaga jiraan hadday noqoto waxbarasho haddii ay noqoto caafimaad haddii ay noqoto biyo dhammaan sektorka socialka la isku yiraahdaa waa wasaaradaha ugu qarankeena ugu ahmiyadda iyo muhiimadda badan leh waayo waxay ka shaqeeyaan ayaa wax taabanaya nolosha bini'aadamka amaba nolosha dadka runtii reer Soomaaliland marka Axmed muddada uu xilka hayay waxaynu ku amaanaynaa sida uu mudadawarka ay wasaaradda waxbarashadu runtii ay waday muddooyinkii u dambeeyay ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay jirtay isaga iyo wasiirkuba waxay ka mid ahaayeen raggii dhidibada runtii u taagay ee shaqada wasaaradda waxbarashada runtii dhaqaajiyay insha Allah wasaaradda loo bedelayna waxa aynu ka filaynaa shaqada baahida qabyadu ma timaadee halka dadaalka aad waday mid kamid ah runtii iyadana inaad halka aad ka sii dhaqaajiso taa Axmed baa runtii kaga baxaya Cabdirasaaq runtii shaqada amaba agaasiminimada kuma cusba waa agaasimayaasha noogu siniyarsan marka la yiraahdo agaasimayaasha guud ee wasaaradda waa agaasima runtii wasaaradda badan ka soo shaqeeyay isagana runtii waxaan qirayaa wasaaradda uu joogi jiray wasaaradda biyaha la yiraahdo ayaan ka mid ahaa raggii ugu dambeeyay ee runtii ka shaqeeyay Cabdirasaaq wasaaradda biyaha wali raadkeedii markii anagu aan tagay raadkiisii iyo waxyaabihii uu qabtay iyo wixii mudadawarkii uu ka sameeyay raggii ugu tagay baan runtii ka mid ahay oo iyadana halkaas aanu iska gaadhnay